مسؤولين كلا الدول قرنكا مدح دقاماتك بعض وحبرشة جامعة كلا الدول مدح جامعة النجاح طوور ريو قدومية دكتور شيخ حسن شيخ علي وسماء قلن شبياشة كلا الدول نبي ندي مدنيان يمروي دمانتي بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي باب سبحانه وتعالى كم هاتسن مناسبة ومن فرحات بدن إلهي نوحي نكبرينا ينو توفيق ذي التلذي ذي نوافجيو فرحات وين بينوتها إنا ندين لو ذاك نصاك فرحات ده وحان هالكن كبو قادين يا دمان dadka halkan ka qalin jabiyay labiyo dhadigba jaamacadda Al-Najaax dafcadii labaad oo tiro badan ah waxaan bogaadinaynaa maamulka iyo macallimiintii wax soo baray waxaan bogaadinaynaa waalidiintii ku tabcay ama taageeray ama garab galay nasiib bay tahay maanta in jaamacadaheena magaalo walba ka furan yihiin nasiib labaad bay tahay in jaamacad islaami burca ka furan tahay هاتي ما أنت قدوميها جامعة النجاح دكتور شيخ حسن علي ورسمة أنا نسيب وهيري إنه بروح كبرته يا شيخ محمد هذا لو كان يبغى يعمل دلش شيء نسيب بايدون كوه شيء شلون بيا هيد مركان بروح جامعتنا لهاي سكندرية أما الدكسية ده سرنا شيخ بشير كلي كفرة يدكسية فرسمة قاعد ما أنت اللي تبندك السرع أي برعلات يسقال جامعة هرمر قرن كني جاري أنتي أي نحرية دين الله سبحانه وتعالى وحنا ركض ضد فرق تريسا أو تشوشة هرمر كي قرن كان أو كذا جاينا وحبب قرار سلامة أين نقولي سنة وين نقولي سنة وحاس قدام بين قبسنا ما قدروا لي ما نقبلي قبيانا مالي لغو مردمي قبيادو ويشري دونتا لكن هرمك يوناك ينوقف سوي باك بدل وحن تعالى يا هاي آن هوستك حريق جامعة النجاح مسؤوليات نقصارا بي هاي حكومة دي حسبك كل مية كلا الدنبيي إنانو اسقرب تاقنو قوبابينو بيريقلينو سودوينو مهاد نقنا مالي صدح arrimood baan aaminsanay xukuumadii hore kulmiyay tamaanta tirtaba waxaan aaminsanahay in madaxda qaranka u shaqeysa ee xilka haysa maalinba waa meerta xilkuye inay diinta ka mas'uul yihiin sidii horumarka kale uga mas'uul yihiin laba in aqoontan islaamiga loo baahnaa jaamacadood sidii asalka ahayd dadka u bara saddex waxaan aaminsanay إسرائيل حدنا آمنسنا هاي سياسة قرن كقريبه سكان الدولي إلى كهر مري كرمكي وذي شراد يعني كريشري علماء يا مدحنا الدولة إن درجات يا قريبا كان الدولة بشدو قرن كإسكو حران أياه المرجالة وعنا آمنسنين قرمنا مسلم كعلماء هذه الدولة هذه خلاف كل حقلي ee iskaashiga wada shaqeynta yeelan waayay waxa ku dhacay ragaad baa ku dhacay waa kuwa maanta rabshadu ka jiraan dagaaladu ka jiraan annagoo taa ka duulayna waxaanu garwaaqsanay inay muhiim tahay inaan culimada wada shaqeyno oo isku fikir ahaano oo iyaguna xilkay hayaan kala aan kala shaqeyno annaguna kaanu aaminsanahay kaanu hayno ay nagala shaqeeyaan ma ahayn guul wadayn sida dadka qaar u dhigo hase yeeshee waan ku bogaadinayaa culimada dalka doorkay horumarka ka soo qaateen waxay ahayd aragti hufan oo sax ah ilaa maanta waa aaminsan waxaan leeyahay wada jir iyo midnimo inuu waxaynu ku soo noqonay nabad iyo deganaansho ayaynu dalkeena ku horumarinay waxaynu u baahanahay oo laga maarmaana inaynu ilaashano nabadgelyadeena waxa laga maarmaana inaynu ilaashano midnimadeena iyo wada jirkeena waxaan leeyahay muhiim ma aha ummadahan inaynu wax walba ku midowno balse waxa muhiim ah wax walba inaynu isku khilaafno ummad baynu nahay
waxay la badan baynu ku kala aragti duwanaan karaa laakiin arrimaha qarankan budbiga u ah ee yoolkii abaarta waa weynaynu ka midowlaan waxaan rajaynaynaa inaa horumarka qarankan wax badan ka qayb qaadan doontaan ilaa isbeddelka qarankani u baahan yahay ee dhaqan aad qayb ka noqon doontaan waxaan ku soo ururinayaa waxaan u mahadnaqayaa mar labaad sidii uu sheekh cabdilaahi baashi sheegay dadkii jaamacaddan ka qayb qaatay dhismaheeda sheekh xasan iyo doctor xasan iyo doctor faysal iyo raggii aragtidaa aaminay ee dalkoodii ku soo noqdayna waxay ka turjubeen runtii qofku waxay xaqiijinaysaa qofku wuxuu uu hamiga uu xambaarsan yahay inuu gaari karo sunnaha nolosha ku jirtaa idaa lam tasid alxayaata shay-an fa anta saa'idun haddaad nolosha waxba ku kordhin weydo dheeraad baad ku tahay waxaynu u baahanay inaynu nolosha wax ku kordhinno oo dalkeenna wax ku kordhinno oo diinteenna wax ku kordhinno ayaynu u baahannahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu